kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal mar kale ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelan doono gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi. waraysigan inta uu socdo waxaan wax ka weydiin doonaa doorashooyinka Soomaaliland waqti la filayo in lagu kordhiyo doorashooyinka Soomaaliland abaaraha mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga wadani iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Ciro iyo arrimo la xiriira wadahadallada muddada soo socday ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. mudan Cabdiraxmaan ku soo dhawow TV-ga STN. TV-ga STN waa mahadsan yahay waana ku soo dhawahay. aad ba mahadsan tahay. haddaan ku bilaabo waxa hadda booqasho ku joogtaa magaalada Nairobi. xogtaan hayno waxay sheegaysaa inaad ilaa iyo 7 safaaradood la kulantay. marka haddaad xog naga siisid iyo ujeedada aad joogtid magaalada Nairobi. bismillaahir rahmaanir rahiim. dhammaan dadka daawanaya barnaamijkan meel kasta joogaan baan salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wafdi ballaaran oo ka socda xisbiga wadani ayaa jooga magaalada Nairobi dalka Kenya. waxaanay joogaan hadda muddo weey ku dhow. wafdigaasi wuxuu yimi laba xaaladood ugu muhiimsanaa inay ka wargeliyaan beesha caalamka xaaladda guud ee Soomaaliland gaar ahaan abaaraha iyo xiritaanka xoolaha oo ahaa laf-dhabarkii dhaqaalaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliinteeda kaleba. marka waxaan la kulannay muddadii aan halkan joognay anagoo ka duulayna arrimaha safaarado ilaa 7 ah ka mid yihiin safaaradda EU-da, safaaradda Denmark, safaaradda Jarmalka, safaaradda Mareykanka, safaaradda Ingiriiska, safaaradda Faransiiska iyo safaaradda Sacuudiga. waxaan la kulannay ururka Afrikada Bari ee la dagaalanka abaaraha ee IGAD loo yaqaano. dhammaan arrimaha waxaan kala hadalnay ugu muhiimsanaa arrinta abaaraha iyo si loo kaalmaynayo shacabka reer Soomaaliland abaarta loo kaalmaynayo iyo sidii loo furi lahaa xoolaha la xidhay oo runtii waddanka Sacuudiga u xiray. marka maxaa ka soo baxay marka kulamadaas? kulamada waxa ka soo baxay waxa positive ay uga soo jawaabeen dhammaan safaaradaha la kulannay. marka shalayto way ka shireen arrintaas waxaana ay wadamada qaarkood noo sheegeen haddaba inay ku dhawaaqeen in kaalmo ay abaaraha guud ahaan Soomaaliya iyo Somaliland ay gacan ka geysan doonaan oo Jarmalku ka mid yahay oo Ingiriisku ka mid yahay. Jarmalku ilaa $5 milyan baan ku deeqay yiraahdeen oo arrinta abaarta lagu kaalmayn doono. Ingiriiskuna ilaa $7 milyan ayay yidhaahdeen gacan ka geysan doonaa. Sacuudiguna waxay yidhaahdeen iyaguna gacan bay ka geysanayaan arrintaas. laakiin Cabdiraxmaan mar walba oo beesha caalamku ay abaaraha Soomaaliland iyo Soomaaliya ay taageerayaan deeq kooban oo ay siiyaan oo markaas aan baahidii wax badan ka bedelayn bay ku deeqaan. ma jirtaa qorshayaal ay muddo dheer qaadanaya oo abaarahan soo noqnoqonaya mar walba looga hortagayo aad kala hadasheen? wadamada badankooda waanu kala hadalnay arrintaas in masalan biyaha loo xiro. biyuhu waa mushkiladda ugu weyn ee dhulka Soomaalidu degto dhan haystata. sanadkii waxaanu ka warqabnaa laba xilliba roobku daa. labada xilli biyo badan baa qulqula, baabuur bay qaadaan, dad bay laayaan. haddii biyaha la xiro waxa laga yaabaa in dadku ay ku filan lahaayeen. waa tahay haddaan dib ugu laabano Somaliland dhawaan waxaa ku biiray xisbiga kulmiye Jamaal Cali Xuseen oo musharax u ahaan jiray xisbiga UCID. arrintaas oo dadka qaar ay leeyihiin waxay xoojinaysaa cududii kulmiye oo hadan ah xisbiga muxaafidka ee tala dalka haya. idinka wadani ahaan talaabadaas sida u aragtay wax culaysa ma jira oo in ku keenayso ololihiina doorashada? Jamaal horta waa siyaasi reer Somaliland doonaya inuu musharax madaxweyne noqdo. xisbiga wadani UCID buu ka tirsanaa. xisbiga dad badan baa taageersanaa Jamaal oo garabkiisa taagnaa. hase yeeshee wadahadal baa noo socday. guddi buu saaray Jamaal la hadasha xisbiyada. guddigiisa ka warqabtaan badda iclaan bay sameeyeen. aqlabiyadoodii waxay ku biireen xisbiga wadani. laakiin Jamaal isagu shakhsiyan wuxuu ku biiray xisbiga kulmiye. marka waxaanu qabnaa aqlabiyadii la socotay Jamaal waxay ku biireen xisbiga wadani. dad badan waxay leeyihiin Cabdiraxmaan Ciro iyo Jamaal isku gobol bay ka soo jeedaan. taageerayaashii gobolkana waxa laga yaabaa in ay ku loolamaan oo isku qabtaan. arrintaas maxaad uga jawaabaysaa?
waa roodka gobolka soo jeeda laakiin taageerayaasha Jamaal gobolka saaxil oo qodobka soo jeedin gobollo badan bay ka soo jeedeen marka waxaan ku kalsoonahay aqlabiyadii taageersanayd garabka Jamaal inay ku biirtay xisbiga wadani hadda waxaa la qorsheynayaa in doorashooyinka Somaliland mar labaad la kordhiyo taasi oo la leeyahay saameyn ballaaran ayay yeelan kartaa adiguna xataa gudoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland ra'yi noocee abaad ka aaminsan tahay sidee baad u aragtaa muddo kordhintan dhowr jeer soo laabad haddana markii labaad la leeyahay waa la kordhinaya horta dee sababihii jiri jiray waxa ugu muhiimsanaa diiwaangelintu inay diyaar tahay oo dadkii la diiwaangeliyey ee codeynaya ay diyaar yihiin imika dadkii liiskii wala diyaariyey kama dambaysta ahaa dadka codeynaya waxa la bilaabaya hadda oo socdo daabacaadii kaararka marka sabab weyn oo hadda doorashadu dib ugu dhacdaa ma jirto arrinta abaartana hadday sii xumaato tala qaran ma laga yeelan doona laakiin sabab muuqata oo doorashadu dib ugu dhici karto oo aan laga wada tashanin hadda ma muuqan karo dadka qaarka waxay leeyihiin si hadda sheegtayba dalku xaalad adag buu ku jira abaar adag baa lagu jira dadku way dhibaataysan yihiin qaar ahaan dadka tuulooyinka miyiga jooga marka xilligan inay doorashadii gallo way adkaanaysaa iyadoo dadkii qayb ay dhibaataysan yihiin dadka arrimahaas u sababeyn in doorashada lagu daro maxaa abaartu way jirtaa dadkana saameyn badan bay ku leedahay laakiin doorashada xilliga dhacaysa waa March sanadka dambe marka ilaahay baan ka baryaynaa de horta in abaarta inaga soo jabiyo waxa muhiim ah in la dhameystiro wixii ka horeeyay wixii ama kaararkii la dhameystiro marka kadib ba the commissionku uu wada tashi baa laga yeelan doonaa arrinkaadina wararka qaar waxay sheegayaan in xisbiga wadani uu aanu diyaar u ahayn inuu xilligan loolan siyaasadeed oo doorashooyinka ku aadan uu galo sidaas daraadeedna isaga laftigiisa laga yaabo in uu raali ku yahay in xilligan doorashada dib loo dhigo arrimahaas iyaga maxay kaga jawaabaysaa arrimahaas wax soo korkoteen xisbiga wadani haddii maanta la qabto doorashada diyaar buu yahay waa gartay waxyaalaha kale la sheegayo wax kamid ah oo aan ognahay sooyaalka siyaasadeed ee Somaliland ilaa iyo markii lagu dhawaaqay madaxweynayaashii Soomaaliya wax kamid ahaa cigaal daahir yaala kaahin iyo sidoo kale madaxweyne Siilaanyo hadda talada haya nin walba wuxuu ku darsaday waqti kordhin muddadii uu joogay kursiga ka wadani ahaan xisbigaaga iyo Cabdiraxmaan Xirro ahaan shakhsiyan ma qorshahaagu ma ku jirtaa marka talada dalka hadii ay noqoto in la wareegtidba in sidan oo kale wadada odayaasha hore aad martid oo waqti kordhin aad sameeysid waxay la tahay su'aasha hore uga jawaabnay barnaamijkeena way ku caddahay muddo kordhin kuma jiri doonto barnaamijkeega waa gartay laakiin barnaamij siyaasadeedka aad soo bandhigteen wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo dadku ay badanaa la dhaceen wuxuuna la mid yahay barnaamij siyaasadeedka kale ay soo bandhigeen xisbiyada kale ee dalka ka jira sida uu qurux badan yahay ma u meel marinaysaan oo ma u dhaqan gelinaysaa insha Allah waan saa u qoran yahay qurux badan yahay u fulinaynaa hadii Ilaahay ka dhigo maxaa ballan qaad oo sameynaysa waxaan ballan qaadaynaa inaan fulinayno ballanqaadka dhow fulintiisa hadhow baa la arki doonaa inaan fulinay inaan fulin waa gartay gobolada bariga Somaliland muddo dheer waxay tabanayeen tabashooyin ku aadan inay gobolada kale Somaliland ka dambeeyaan oo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo horumar kaleba ay ka liitaan xisbigaaguna hadda gudoomiyihii xisbiga iyo ku-xigeenkiisuba waa gobolada dhexe iyo galbeedka Somaliland la isdhihi karaa Cabdiraxmaan Xirro iyo xisbigiisa wadani waxay mareen wadadii hore ee axsaabta ka horeysay ay mareen oo waxa la baal marayaaba goboladii bariga maxay tahay siyaasadda ku aadan gobolada bariga horta xagga horumarka markay noqoto barnaamijkeena way ku caddahay dalku uu kala hormaray waa run nabadda ku soo kala horeysay maamulka ku soo kala horeeyay bariga galbeed marka in la soo gaarsiiyo waa siyaasadda xisbiga waxaana ku caddahay barnaamijka in gobolada bariga ka dambeeyeen way ku qorantay barnaamijka iyaga siyaasiga ah aanu jecelnahay in la soo gaarsiiyo tan musharaxnimada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dadka siyaasiyiinta iyaga dee sharaxayay oo soo doonayay jagooyinka marka cid ka soo jeeda gobolada bari oo tartantay xisbiga dhexdiisa may jirin marka insha Allah doorarka dambe waxaan rajaynaynaa in musharaxiinta ka soo jeeda gobolada bari way furan tahay meeshu waa tartami karaan madaxweynahana waa tartami karaan madaxweyne ku-xigeenkana waa tartami karaan laakiin waxa la isweydiinayaa maxaa mar walba aan ugu jirin gudoonka gudoomiyaasha axsaabta iyo ku-xigeenadooda
iyadoo ay jiraan siyaasiyiin badan oo bari ka soo jeeda oo haddana Hargeysa jooga oo loolanka siyaasadda qayb weyn ka ah maxaa mar walba ku koobay gobolada dhexe iyo galbeedka Soomaaliland raggii ugu sarsareeyay siyaasadda dalka Soomaaliland hoggaanka xisbiga waa ku jiraan mas'uuliyiin sare oo ka soo jeeda goboladaas waliba raacay gaabo waa ku jiraan waxa ku jira reer Sool waxa ku jira reer Buuhood inta ku jira hoggaanka xisbiga waa tahay gobolada bari marka laga hadlayo waxa laga maarmaana in la tilmaamo maamulka Khaatumo oo Sool iyo Sanaag iyo Cayn sheega inuu maamulo dhawaan waxa la furteen wada hadal oo adigu aad gudiga wada hadalka waliba ku jirtay hadda waxa la sheegay in aad sabab la fadhiyo arintaas lagu gorfaynayo maxaad nooga sheegi kartaa wada hadalada Khaatumo iyo Soomaaliland hasan yar sicitaan ku daraya anigu gudiga wada hadalka ma jiro laakiin waa la kulmay Ali Khaliif iyo mas'uuliyiinta kale ee la socdayba waxaan ku dhiirigelinay in wada hadalka ay bilaabaan oo dawladda Soomaaliland ay la hadlaan marka wada hadalka waxa wada dawladda Soomaaliland magacawday waxaan rajaynaynaa inay wax wanaagsan ka dhashaan hadii la ka dhigo saameyn intee leey bay ku leeyihiin xisaabta siyaasadda wada hadaladaas xisaabta siyaasaddu kama mid aha xisbiga xukuumadda iyo xukuumaddu ba ka mid ah wada hadalka waa gartay wada hadalada kale iyaguna socda mudana soo socday waxa kamid ah midda Soomaaliland iyo sidoo kale Soomaaliya ka dhaxaysa oo muddo soo socotay oo marba dal uu marti gelinayay oo Turkiga uu ku jiro wadamadii marti gelinayay xagee ku dambeeyay wada hadaladaas wada hadaladaas xisaabta mucaaradku qayb kama yahayn bilowgii waa ku jireen laakiin dawladda Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliya ayaa ka wada hadlayay muddana waa wataagnayo wax midho ka dhashayna ma jirin waxaan ognahay wax midho dhalo ka dhashay wada hadalkaas ma jiro idinka see u aragtaan marka qaabkee baad u aragtaan in loo mari karo wada hadaladaas waxaan u aragnaa in halka laga soo dhaweeyo oo haddii labadii dhinac ayagu horumar sameyn waayeen waxa laga maarmaanaa in dhexdhexaadina timaado oo axsaabta Soomaaliland mucaaradku ama wadamo kale dhexdhexaadiyaan labada dal waan u aragnaa haddii tallaabo horumar laga gaari waayo dhexdooda ka gaari waayo marka mustaqbalka wada hadaladaas ay aragtaa ma u aragtaa inay noqonayaan kuwa mir dhalaya oo ujeedadii laga lahaa laga gaarayo mise waxaad u aragtaa kuwa waqtiga lagu midlimanayo maalinba caasimada la isugu tagay waxay la tahay ajenda wanaagsan loo sameeyo oo barnaamijka dhexdhexaadinta la xoojiyo in meel ka dhalan karaan baan ila tahay waa tahay dawladda haatan talada dalka haysa ee Soomaaliland gaar ahaan xisbiga kulmiye dawladdu waxay dhowr jeer samaysay oo soo xigta oo soo laalaabatay isku shaandhayn golaha wasiirada ah arintaasi oo dad badan ay sheegeen in ay saameyn ku yeelanayso horumarka iyo geedi socodka siyaasadda Soomaaliland sidee u aragtaa adigu mar walba in xukuumadda Soomaaliland ay sameynayso isku shaandhayntaas qofka xukuumadda dhisitaankeeda madaxweynaha iska leh laakiin waxay aqliga wanaagsan inoo sheegaya ninka xilka haya loo dhiibay xafiiska fadhiya hadduu bil joogo ama 3 bilood joogo inaan waxba samayn karin marka waxay la tahay wax horumar qof qaban kara inaysan jirin haddii sanadkiiba 2 jeer la bedelo waxay la tahay horumar ka iman kara ma jiro isku shaanaynta badan waa gartay intii hadda muddada u dambeysay waxa la sheegayaa in musuqmaasuqa ama wax isdaba marinta iyo sida kale qabyaaladduba ay gaadhay heerkii ugu sareeyay abid ee taariikhda Soomaaliland arintaas badankeeda waxa la saaraya axsaabta kala duwan ama muxaafid ahaadeen ama mucaarad ahaadeen ma inila muuqata in shacabkii Soomaaliland halkii maanta la rabay in la mideeyo aad idinka laftigiina maanta si kala qaybinaysaan oo aad beelo laga soo tagay maanta u gudbaysaan waxay la tahay Soomaaliland waxa loo sameeyay axsaabta in laga baxo qabyaaladda marka waxay la tahay waxa laga cabanaya inta badan waa xukuumadda gacanta ku haysa talada markasta ama anagu aan nimaad ama tan joogta ha noqoto inta badan cabashada xisaabta kuma salaysna tan musuqmaasuqa waxay la tahay maalin dhaweyd waxa soo saaray hay'adda qaranka u qaabilsan maamul wanaagga report bay soo saartay in ka saaran report ka akhriyeen ay kaga hadlayso arrimaha musuqmaasuqa iyo sidoo baahsan yahay marka waxay la tahay xukuumadda joogtana waajib inay la dagaalanto
annagana barnaamijkayga waa ku qoran tahay si cad in zero tolerance ama la gaarsiiyo arrimaha musuqmaasuqa. waa gartay marka laga hadlayo arrimaha qabyaaladda oo kale waxaa jira beelo la sheego in la hayb soco oo Soomaaliland ku nool waxay beelahaasi mar walba tirsanayaan inaan saamiga siyaasadeed ama saami qaybsiga siyaasadeed ee Soomaaliland aanay kaalin ku lahayn oo mar walba iyaga laga tago xisbigaaga wadani maxay tahay siyaasadda u degan ee dadkaasi ay ku aada anu waxaan leeyahay dadka ka hadlayso hadda reer Soomaaliland xisbiga waxay ka hayaan jagooyinka ugu sareeya مثلا waxay hayaan xokayaha cadaaladda ee xisbigu barkhad wan aad loo yaqaano mubaarak ba kamida oo gudoomiye xokayaha golaha dhexe ee xisbiga mas'uuliyiinka cali saayiq ba kamida mas'uuliyiinta xisbiga marka waxa leeyahay marka la eego xisaabta oo xisbiga ay si buuxda uga muuqdaan waa gartay marka laga hadlayo waxbarashada iyo shaqo abuurka waxay dhaxal siisay dhalinyarada Soomaaliland inay u kala jihaystaan isticmaalka mukhaadaraadka tahriibta iyo dhaca maxay tahay waxyaabaha ku qorshaysan ama ku cad ajandayaasha ama qorshe siyaasadeedka xisbigaaga ee ku aadan sidii loo tayin lahaa waxbarashada iyo shaqo abuurka dhalinyarada maalin walba ka soo qalin jabinaya jaamacadaha Soomaaliland kala duwan ee door bidaya miciin badaya inay badda iyo saxaraha madaan intii ay maanta ku noolaan lahaayeen nabad iyo horumar Soomaaliland gudaheeda runtii dawlad kasta waxa leeyahay waxa ugu qaalisan human resource-ka ama dadka sida loo koriyo barnaamijka xisbigana waa ku cadahay in la tayeeyo waxbarashada in la sameeyo dugsiyo farsamo si dhalinyaro loogu abuuro shaqo ay xirfad u yeeshaan marka shaqo abuurku iyo dhalinyaradu iyo kordhinta dhaqaaluhuba waxa weeyaan waxyaabaha mudnaanta aan siinayno barnaamijka siyaasiga dhanka caafimaadka kale marka laga hadlayo Cabdiraxmaan Cirro waxyaalaha la soo hadal qaaday waxa kamid ah in tayadii xarumihii dawladda ee caafimaadka ama xarumihii waaweyn ay hoos u dhacayaan oo dhakhaatiirtii waaweyn ay furanayaan dhul iyaga u gaara oo ay ku shaqeynayaan taas oo saameyn weyn ku yeelatay dadkii danyarta ah oo aan awoodi karin iyagu inay iska bixiyaan meelaha gaarka loo leeyahay oo qaali ah marka maxaa ku qorshaysan in aad dhanka caafimaadka ka tayin doontid oo dadka taagta daran aan awoodi karin inay caafimaadka la baxaan ay heli karayaan taa waxbarashada kulli waxaan ku dadaalaynaa in la kordhiyo oo la gaarsiiyo 20% miisaaniyadda dalka haddii la ka dhigo caafimaadkana barnaamijka mid la mid ah in la gaarsiiyo dhammaan caafimaadka aasaasiga ama waxa loo yaqaan primary health care-ka in la gaarsiiyo bulshada ay ka mid yihiin MCH-yadu ay ka mid yihiin goobaha caafimaadka ee degmooyinka iyo tuulooyinka iyo xitaa mobile gurguri kara oo reer miyiga la guri kara xaaladaha caafimaadka waxay ka mid yihiin barnaamijka aan doonayno caafimaadka ku kobcino waa tahay waxyaalaha la isweydiinayo waxa ka mid ah hadda ilaa 91 bay Soomaaliland soo jirtay muddada inta leegna waxay raadinaysay sidii ay beesha caalamka uga helaad ictiraaf ama aqoonsi dawladnimo inay tahay dawlad madax bannaan oo ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale waqti dheer wuu qaatay waxay la tahay wada hadalka Soomaaliland waa ka mid in la wada hadlo oo sidii loo kala bixi lahaa laga wada hadlo oo Soomaaliya Somaliland ajenda cad ku wada hadlaan waxa ka mid ah in cid wada hadalka dhiirigelisa oo dhexdhexaadisana la helo waana taa taageerayna waa qorshaha aan wadno in hadii labadii dhinac ay wax horumar keeni waayeen in wadamada ay saaxiibka la Soomaaliya iyo Somaliland arrinta dhexdhexaadin laga galo waxa ka mid ah inaan beesha caalamka ku qancino oo laga shaqeynay muddo dheer laakiin waxaan doonaynaa fariin ka dhow kuwii hore inaan gaarsiino beesha caalamka dadka qaar waxay ku doodayaan in Cabdiraxmaan Cirro ahaan adigu aad u dhowdahay dhanka siyaasiyiinta kale ee Soomaalida taas oo dadka qaarkii ay u arkaan in aad door bidayso oo aad u xaqliso badanaa in midnimada Soomaaliya la raadiyo arrimaha maxaa kaga jawaabaysa dadka tuhunka qaba maxaad u jawaabaysaa waxaan ugu jawaabayaa anigu shacbigaygaan ka wakiilahay shacbiga Somaliland aftibay ku go'aansadeen inay gobonimadooda iyo goonistaagooda ay ku doorteen wax la cid bedeli karta taasna
ma jirto siyaasi bedeli karaana ma jiro baas laa markaa shacbigayga waxay doonayaan baana ku matalaya hadii la waxaa jira khilaaf ku saabsan dhanka xadka ah oo u dhaxeeya Somaliland iyo Puntland oo uu jiro muran ku aadan dhanka Sool iyo Sanaag oo qolob ay sheeganayso anaga dhulkan la anaga leh arrintaasi muddo dheerna way jirtay dagaalo badanna way jireen oo ku dhaxmaran labada dhinac dadna way ku dhinteen ilaa iyo maantana way taagan tahay wadada ugu haboon baad u maleynaysaa in lagu xallin karo arrintaasi si looga gudbo muranka muddo dheer soo jiitamay waxay la tahay horta sheegasho ma jirtee xuduudkuna wuu iska cad yahay Puntland waxay leedahay isku qolaal nahay dadka halkan dega marka waxay la tahay hadii qolo la eegayo xuduudada Afrika oo dhan reer kasta dhinac kasta oo ka dega xuduudada Afrika marka anu gaashan ma sheegan karo oo ma oran karo reerkayga dego oo aniga leh marka waxay la tahay xuduudku iska cad yahay taana wada hadal baa lagu dhameynaya saan islaamahay wada hadal loo maraya waa gartay arrimaha kale aan jecelahay wax ka wadiyo waxa kamid ah Cabdiraxmaan Cirre ahaan halgankii xurriyadda Somaliland kaalin intee la eg baad ku leedahay dad badan baa su'aalaha weydiiyay oo si aan kugu soo gudbino kaalin intee la eg baad ku lahayd xurriyaddii Somaliland waxaan isleeyahay anigu Somaliland u shaqeynay barigaas oo waxaan ahaan ku jiray wasaaradda arrimaha dibadda ka shaqeynayay laakiin waxa laga yaabaa dad badan oo gudaha jiray inay uga waxtar badnaa waana soo bixi doontaa taariikhdaas waa gartay ugu dambeyntii waxaan jecelahay Cabdiraxmaan inaan ku weydiiyo sidee u aragtaa mustaqbalka doorashada Somaliland dhawaan la filayo ee shakiga badan la geliyay ee la leeyahay waxa laga yaabaa inay dib u dhacdo taasoo beesha caalamku laftigeedu ay ku noqonayso dhabar jab weyn maadaama iyadu ay tahay cidda dhaqaalaha ugu badan ku bixisa sidii dimuqraadiyadda Somaliland hore u socon lahayd doorashooyinkan ay ku qabsoomi lahaayeen أنا وحنا قبلنا حسبي هان إن دور شو وقت يودي في قبصوت. حدي قبسوم ويدو محويها جو أنك حسبي عودك. وحياتها عيد ما أنت خص بكرتها مدكورين مشفت. مدكورين أنا لقوا تشنا ما دعي كرتو. مدكورين أنا لقوا تشنا ما قبلين دونا ما في وكاس. أجد بابا ما سنتهي. Thank you very much. هذا ما سنتهي وريسي وكام هعلنا واتهاي داوديال intaasi waxaan ku soo gabagabeynaa wareysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo lagu magac dheer Cabdiraxmaan Cirre oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee Somaliland xisbigaas oo xisbi mucaarad ah intaanu barnaamijkan lamid ah ku kulmi doono waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo